بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم waxaan soo dhaweynayaa dhamaanba daawadayaasheeda qiimaha qadarinta iyo sharafta mudan ee barnaamijka sida tooska ah ula socda oo barnaamijkii tartanka hal-abuurka ganacsiga oo si joogto ah u maalgeliyay bangiga caalamiga ah ee Premier Bank waxaan jeclahay xubnaha guddiga inaad ila soo dhaweysaan waxaan u yeedhi doonaa madaxa barnaamijka tartanka hal-abuurka ganacsiga ee jaamacadaha dalka Professor Mubarak Ibrahim R waxaan u yeedhi doonaa xubnaha guddiga إسماعيل آذن ميعاد وحكلون يردونا عبد الرحمن علي حرسي برالي ميتي وحنو يردونا حبيت قد يقود بيسا عبدي يوسف آر وكما عبدي يوسف آر cabdi yuusuf aar waa ganacsade waxa uu 15 sano ee u dambeeyay ahaa maamulaha guud ee sharikadda caanka ah ee Sagaljad waxa uu hore uga soo shaqeeyay sharikaddii Bitag oo uu ahaa madaxa suuqgeynta iyo iibka sharikadda MSG Trading Company oo uu iyadana ahaa madaxa iibka waxa uu cabdi digriga koowaad ku qaatay maamulka iyo ganacsiga waxaanu hadda wadaa digrigii labaad waa kuma Cabdiraxmaan Cali Xirsi Cabdiraxmaan Cali Xirsi waxa uu shahaadada heerka labaad ee masters ka qaatay jaamacad ku taala dalka Malaysia waxaana uu ku takhasusay arrimaha maamulka iyo ganacsiga waxa uu ka soo shaqeeyay hay'adda PSI oo uu maamulayay mashaariic kala duwan sidoo kale wuxuu ka soo shaqeeyay hay'adda Africa Education Trust iyo Handicap International Cabdiraxmaan waa aasaasaha iyo gudoomiyaha sharikadda Hasi Consultant oo hadda ka shaqeysa dhammaan geeska Afrika isla markaana xarumo ku leh magaalooyinka Hargeysa, Jigjiga iyo Muqdisho waa kuma Ismaaciil Meecaad Ismaaciil Meecaad wuxuu shahaadada heerka labaad ee masterta ka qaatay jaamacad ku taala magaalada London Ismaaciil waxa uu ka mid yahay maamulka sare ee sharikadda Meecaad Group waana aasaasaha xarunta tababarka iyo shaqaabuurka dhalinyarada ee loo yaqaano Borama Job Center taas oo kumanaan dhalinyaro ahi xirfado iyo carbis shaqaba kaga faa'iideysteen Ismaaciil Meecaad waa aqoonyahan ganacsato ah oo aqoon iyo khibrad durugsanba u leh maamulka hogaaminta iyo hal-abuurka waa kuma Mubarak Ibrahim R Mubarak Ibrahim R waa hal-abuuraha iyo madaxa barnaamijka tartanka hal-abuurka ganacsiga waana gudoomiyaha jaamacadda Badar waxaan u yeedhi doonaa wareega afraad koox ka mid ah waa kooxda ka socota jaamacadda Golis magaalada Hargeysa oo ku tartamay barnaamij la yiraahdo Sahal Enterprise waxaan soo dhaweynayaa ardayda ka socota jaamacadda Golis Hargeysa waxaan jeclahay shacabka inay igula soo dhaweysaan magacaaga saddexan رمضان محمود ولا رمضان معاهم كلية ومسعود وكل صوت سلمان وتاي رمضان يا سلمان ان واحد لا سعودين برنامجدا نعاو halka ka dhacayay afar group oo kala idla tartamaya waxaan rajeynayaa inaad ku dadaashaan inaad ka guuleysataan bulshaduna waxay sugaysaa in barnaamijkiinaasi Sahal Enterprise asixiisa badan soo bandhigta dadka ka iibisaan aad caaw iib geysaan 3 daqiiqaad haysataa barnaamijka hore ma la socotay رمضان داون جير رمضان imsa Ramadan baad daawatay والله ديدka ma garanay laakiin waxaan garanayaa barnaamij ku jiray oo ahaa barnaamijkii baastada lagu tartamay baastada iibkeeda mas'uuliyadeeda iibkeeda waxa markaa ma guuleysan qolada daawanaysay mayi wala laga guuleystay waa tahay caaw barnaamijkaasi sidii uu soo dhigay si la mid ah si ka fiican in aad guuleysato Sahal Enterprise nooga iibsan rajeynayaa 3 daqiiqaad haysataa 3 daqiiqo wad ka gaarsiin doontaa bal in aad ka iibiso barnaamijka aad iibgeyso waa marketkii weey maadaama ganacsi u bareeday aad u naasantay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Ramadan Maxamuud dhammaan waa salaamaya dadweynaha iyo gudidaba kambanigayga waxa la yiraahdaa Sahal waxaanu ku tartamanaa mashruuc loo yaqaano Fuel Consumption Monitoring System sida magaciisa ka muuqata waa tiknoolajiyad cusub taas oo markaa maxay toolay monitoring amba daba socod ku sameynaysa shidaalka gawaarida kaalmaha iyo haamaha shidaalka waxaynu ognahay in qiimaha shidaalku sanadba sanadka ka dambeeya markasta uu kor u sii kaco taas oo kambaniyadu ay wajahaan kharashaad aad u fara badan oo xalka shidaalka ah baahida loo qabo in la daba socdo amba monitoring yani lagu gaargareeyo kambaniyada in shidaalka ay isticmaalaan muhiimadda ay leedahay waxa kamid ah practically waan soo taabanay xarumaha aan tagnay waxa kamid ah
amba xarumaha mashruucani waajahayo waxa kow ka ah industrialka waxa laba ka ah businessyada sida transportationka kuwa ka shaqeeya transportationka waxa kamid ah hay'adda oo ah sectorka ugu weyn waxa kaloo kamid noqon kara Allahumma salli ala Muhammad jaamacadaha kaalmaha shidaalka dhammaantood waxay u baahan yihiin inay la socdaan shidaalka waa tiknoolajiyad cusub oo digital ah taasoo markaan isticmaalno sensaro adduunka yaala adduunkan laga isticmaalo wadamada shidaalka qaniga ku ah sida Ruushka oo kala isticmaala haddaan ka hadlo mashruucani cusaybka amba faa'iidada uu u keenayo kambaniyada uu target garaynayo waxa weeyaan horta competition ma leh wax nagula tartamay abeeraatee ma jirto waana mashruuc cusub waana adduunyadu imka waxa u socotaa digital era marka waxaan siniri anagu ka fikir ahaan bal dalka in maxay toolay digitalka xagga digitalka yaana laga carar sidaas oo tahay qaabka faa'iido sameeyna annagu waxa weeye waxa ugu muhiimsan targetka saarna waa customerka 6 qodob baan u sheeganaa horta kow si aan faa'iido sameeyno annaga hadafkaygu waa faa'iido sameeyno si aan faa'iido sameeyno customerka waxaan u sheeganaa kow inuu waxaan cusub yahay isla markaana cidda uu taabanaya ay badan tahay sidaan idin sheegay kaalmaha businessyada shidaalka kharashaadka shidaalka businesska ku baxa aad bay u badan yihiin exactly ma oga businessyadu shidaalkan ma kii shaqada lagu qabtayba ma mid lagu tasarrufayba ma oga waxa ugu muhiimsan sectorka ugu weyn waa dawladda customerka waxaan u sheegnaa marka maxay inuu cusub yahay sidoo kale waxaan u sheegnaa inuu adeegani maxay ay toolay uu meelo fara badan taabanayo oo company-giisa wajaha waa reliable waa la isku halayn karaa waa highly accurate 99.7 ayuu gaaray maxay ay toolay saxnaantiisu qodobka saddexaad waxa weeyaan easy installation si yar fudud baa lagu fulin karaa waxaan aaminsanahay annagu waxaas oo dhan baa aysan inaan wiigi iibin karno 20 sensor oo aan ka helayno 30% faa'iido ah oo $75 ah $75 haddii lagu dhufto 20 sensor waxay noqonaysaa $1500 haddii marka lagu dhufto 4 wiig oo bishu ka kooban tahay waa $6000 running cost-gayga haddii laga jaro oo noqonaysa $1230 waxaanu faa'iidanaa $4770 aad baa u mahadsantihiin wixii intaa dhimanna su'aalahan jeclaan inaan ka jawaabo aad baad u mahadsantahay waxaan jeclahay shacabkeena u turtaa ardaygaasi runtii waan soo dhaweynayaa in mashruuc cusub aad la timid waxaan rajeynayaa bal mashruucaasi iyo hanaanka ganacsi iyo nidaamkii guddiga u yaallay processkii inaad marno kadibna guddiga ay eegaan bal qiimeyntii u horreysay qaabka ganacsigaagaasi uga iibsamayo waxaan ku bilaabayaa cabdiraxmaan cali xirsi cabdiraxmaan mashruuca uu soo bandhigay arday ka socda jaamacadda golis hargeysa maxaa kaaga baxay marka koowaad horta waan hambalyeynayaa waa halabuur runtii adduunyada kale ka jira laakiin inaga inagu cusub waanan u ducaynaya ilaahay inuu fududeeyo anoo taa eegaya halabuur inay tahay 55 maan ayaan bilowgii siiyey waa tahay ismaaciil macaad baan soo dhaweynaya sidoo kale waxaanan si cad u fahmin wuxuu iibinaya horta waxay tahay iyo meesha lagu xidhayo iyo sida u shaqeynayso intaaba horta presentation-ka igamaysan muuqan laakiin istifaaca dambaan rajeynaynu ku timaado 45 baanan qiimeynta koobaad siiyey waa tahay cabdi yusuf waan hambalyeynayaa tiimkaa soo bandhigay barnaamijkan halabuurka cusub marka dhinac laga eego waa fikir cusub oo runtiina loo baahan yahay la hirgelin karo mashruucoon anigu in badan soo akhriyey imikana uu si fiican u sharaxay markaan eegay 60% waa tahay aad baan kuu bogaadinayaa adigii saaxiibkaaba caawma keligaaba jecel inaad difaacda mise saaxiibkaad u yeedhisa ku imanayaa waa tahay labada arday ka socda jaamacadda golis oo magaalada hargeysa isla markaasina ku tartamaya barnaamijka la yidhaahdo Sahal Enterprise oo soo bandhigaya ama sameeyay sensor cusub oo dhinaca shidaalka xadidaya ama la soconaya waxaan idin rajaynayaa inaad guulaysataan waxaad geli doontaan 10 daqiiqo oo ah in barnaamijkiina aad difaacda bal siduu ganacsi ahaan u shaqeynayo nidaamka uu marayo waxa kale oo marka haddii guddida u baahato dheeriya guddiga ayaa time ku darsan doonta waxaan ugu horeysiinayaa Ismaaciil aadan meecaad inaan ku soo dhaweeyo su'aasha horeysa waay waan markaa waan soo dhaweynayaa guulna waad in rajeyn insha Allah bal waxaad si kooban nagu sheegtaa exactly waxaad iibinaysaa muxuu yahay sidee loo isticmaalayaa sidoo u shaqeynayaa yaa gacanta ku hayn kara waqtigoo aad igu yaraa awgeed baanan wax fara badan uga gaari karin waxaan iibinaa horta waa qalab hore yar socdo waa device cad weeyaan oo taangiga gaariga lagu ridayo
amba taangiga kaalinta shidaalka waa device waa qalab caadiya waa birtaa dheer birtaas waa flexible waa flexible waa la jari karaa waxay ka bilaamataa 10 cm 10 cm waxaan u maleynayaa inay xataa taakadeeda haafkeega tahay ilaa iyo 6 cm 6 cm 6 mitir waa taangi aad u dheer bay geli kartaa waa la jari karaa toolkeedu wuxuu ku qoran yahay financial planka dhammaan waan siinaa quotationka iyo qiimeynteeda iyo rasmiya waxaana lagu iibiyaa shirkadaha online baa lagu iibiyaa dalabkeedana insha Allah waan idin la wadaagi doonaa oo waxaan ka dalbanay Alibaba Flydubai baa noo keenaysa qiimeynto dhanna waan haynaa marka waa qalabka cad ee adduunka lagu hayo oo taangiga gaariga si toos ah aan ugu ridin marka installationkiisuna waa piece of cake weeyaan waxaan ku darayaa waxa laga xirayaa qalabka saashada sida ka muuqatay meel top ilaa low uu kaga qaban karay taangiga marka taangi kasta oo shape-ku nooc doona hayso gawadhida waad aragteen way kala shape duwan yihiin marka uu muxuu ahaa uu gelayaa taangi kasta shape-ku doona ha lahaado muxuu markaa ii faa'iideynaya aniga sense ula socon karaya waxaad la socon karaysaa way kala duwan yihiin horta adigoo nooc ma horta businesskaagu nooc ma industrial baan u shaqaynaynaa waxaan u shaqaynaynaa gaadiid baan u shaqaynaynaa kaalmaan u shaqaynaynaa businesskaagu nooc ma si aan kaaga qalbino maxaad rabtaa soo qaado tusaale waxaan soo qaadanayaa gaadiid ka soo qaado ugu badan taangigu ku xidhmay haye number 1 GSM baa raacsan aad ku ogaanaysa gaarigu halku maray iyo halku joogo aan ku aan wado waa tan muxuu fulinayaa halkan waxa ka muuqata GSM-kii gaadiidkii meeshuu maray gebi ahaan surface-kii meeshuu ka bixiyay halku aaday halku ka leexday saacadu maray shidaalku isticmaalayna waa ka isagoo qiimaysan way aan ku daro graafkan wuxuu sheegayaa shidaalka goortii lagu shubay siduu u isticmaalay meeshuu ku fuliyay iyo siduu u baxay su'aashaada koowaad ka jawaabtay hal mid baan ku darsani kadib aan uga bis asxaabtida okay xagga qiimeyntiisa ka waran markaa qiimeyntiisa siduu noogu imanayo intaad siinaysaan kamariga intaad ka siinaysaan gaariga intaad ka siinaysaan xabadiiba waxaanu siinaynaa $250 baan siinaynaa calaamid maca surface-kiisa idinka muxuu idinku joogayaa markaa annaga waxaa noogu joogayaa $170 maca keenista cashuurta gebi ahaan hargeysaan sheegaya markaan joogo ilaa hargeysa noogu imanaya $170 xaggan waxaad ku qorteen laba qiime oo mushaara mar mishaarka waxaad qorteen $650 inay noqonayso marna waxaad qorteen 2,100 mishaar ah oo isugu jira aan ku kala sharax waliba communication staff baa tiri waa $500 ICT waxaad tiri $450 human resource waxaad tiri $550 mechanical engineer $600 waxa isku noqotaa 2,100 xaggan dambana waxaad ku qortay ومستقبلك تاس اوكي من ذا مستقبل من ذا نو إمك تنل تاجي تدمر تنل تاجي waxaan ku qeexaynaa wax inta education aanu ka shaqaysiin doono mustaqbalka ugu dambeyn warqadda ugu dambeysad kulli faaqdeen maxay tahay waxa weeye waa abin naga soo waxaanu ka soo qaadnay horta waxaan tagnay wasaaradda gaadiidka iyadoo waxaan la kulmay agaasimaha gaadiidka waxaanu tagnay laba kaalmood waxaanu tagnay shirkadda transportation-ka tani abadhigas kan dambe waa shirkadda transportation qaabka qiimeynta haddaan ku sharaxay u samayso waxa weeyaan gaariga maartay mitirka ku qoran bay qortaa su'aalaha kale gaariga wax ku qoran 1,200 way dhantahay wad ka jawaab way dhantahay ay su'aal kooban ku idin weydiiyo bal erey ama laba ku soo koob faa'iidada rasmiga ah ee uu qofkan monitoring-ka eg la socoshadii waynu garanay maxay taraysaa faa'iidadaasi la soconaysa sideed customer-ka uga iibinaysa waad ii timi anoo shirkad haysto tusaale ahaan waxaad tiri waxaan kaa iibinayaa barnaamijkan oo bahalkaasaan kuugu xidhayaa sensorka iyo waxaa deedna waxaasuu kuu xallinayaa amaad kaga raysanaysaa intaa iga iibi taa dhab baanu soo taabanay kaalin baanu tagnay waynu weydiin qaabkii waxay iyagu isticmaalaan kuwii buug bay isticmaalaan bir bay qaataan taangigay geliyaan waxaan ku sharxayaa oo kaalmaha taangi bay geliyaan birta markaa markay geliyaan birta waxa ku sawiran measurement saan kale 20 foosto something content liter deetana waxa igu yiri 20 ka foosto iyagu markasta iyo foostooyinku iyagu waa constant laakiin si bartu error ku naga galaa waxa weeye ma 25 litir baa mise waa 30 litir baan u kala garan weynaa deetana waxaan ku uri war haddaan anoo gaari wata idin imaado idiraado 500 iga daaya waxaad tiraahdaa waxaan waa shidaal oo ma ogola 500 10 litir maxaad uga maaranteen wuxuu yiri waa dani ku badayo meel aan u dhaafno ma jirto haddaba ninkaas oo kale
laba faa'iido saddex faa'iido haddaan kuu sheego oo uu leeyahay waxa weeye kow horta erarkaa xataa percentage-kaana ha ahaatee percentage-kaa xataa 1% na xataa 1 litre na xataa ha ahaatee inaanu ka qaldamin baanu sheegaynaa kow shaqadiisu inay wanaagsanaanayso inaan ka yaree u shaqaynaya mar kasta oo la soo iibiyo shaqada uu xidhayo maalintii 3 jeer buu birta geliyaa taangiga waa dareemi kartaa taangi intaasoo kuna foosti ku jiraan riskiga ka iman kara tusaale ahaan hay-ad baan maamulaa ama kambani baan maamulaa ganacsi waxaan doonayaa gawaadhida aan isticmaalayo shidaalka aan u isticmaalayo markaad intood xafiiskayga igu timaadaad tidhaahdo waxaad u baahan tahay systemkan iyo sensorkan oo kuu monitor garaynaya aniga muxuu i tarayaa adiga wuxuu ku tarayaa transportationka tusaale ka labadan ku soo qaato markaad gaadhiga u diray sida adeeg aad leedahay adeega ay soo qabo exactly ma tiraadid adeega tusaale kale hadduu 20 kilomitir gaadhigan kuu socdo waxaad oranaysaa niyo 20 kilomitir gaadhigaagu waxa la yidhi 10 litir buu qaataaye 10 litir qaado iguma odhan kartid 10 litir waa actual shidaal uu qaadanayo waxaan oran karnaa 7 litir 6 litir buu gaadhigu kugu fulinaya adeega adiga 7 litir 6 litir 3 litir kale waa 3 litir oo ka lumay oo inanka dirawalka ay misuse gareeyay annaguna intaa weyn inta badbaadinayna sida la ajligeed adiga imika markuu sensorkan aan kugu xidhno gaadhigaaga wuxuu ku siinayaa data for specific period of time waqtiga doonto imikaad ila hadlaysaa ma mobilkaygu ku soo dhacaya mobilkaagu kugu soo dhacaya computerkaagu kugu soo dhacaya dabeetana adiga waxaa kuu fududaanaysaa kaalintii la xisaabtankeeda xataa way kuu fududaanaysaa simple bisha markay dhammaato waad la soo baxaysaa waraaqadii kaalintii way u tegaysaa waxaad leedahay gaadhiga hebel gaadhi hebel wuxuu kaaga shubtay waqtigaa xataa wuxuu ku sheegayaa 12 barhka hadduu kaga shubtay wuxuu leeyahay 12 barhkii buu kaaga shubtay maalinta intaasoo litir buu kaaga shubtay maalinta intaasoo litir buu kaaga shubtay adiga isla xisaabtanka adiga iyo kaalintu way idin fududaanaya laba adiga iyo dirawalka isla xisaabtankiinu way idin fududaanaya gaadhi kasta hal sensor buu gaadhi kasta hal sensor buu baahay xisaab ahaan ma ku yar raaciyaa qancintaada ka soo qaad hay'adaadu waxay ka kooban tahay 4 gaadhi oo kale 4taa gaadhi baan waxaan ku xidhnay sensaro sensaradaanu ku xidhnay kaba soo qaad gawaadhidaadu waxay la iskareen jireen maalintiiba 5 litir waa 4 gaadhi laga yaabaa 1 litir waa qiimaha ugu yaraan samayn karayno 5 litir haddii maalintii waa $5 hadday kaba badnaynba maanta markaan joogno way ka badan tahay 5 litir $5 5 litir markaan ku dhufano bishii waa $150 6 bilood gudahood $950 baad ku bangigaaga kugu jiraya markaas sensorkan aanu kugu xidhnay wuu si soo celinayaa adoo aan dareemeyn xisi ahaan baan macna ahaan baan ku sameynayna laakiin xisi ahaan isku soo celinaya sensorkani oo waxaanu kugu xidhnaa aanu ka tagnay maaha midda kale waa surface is soo celinaya isagu wixii ka dambeeyana mar labaad baan idin hambalyeenayaa barnaamijka runtii halabuur kale aad la timaadeen waan fahmay inuu shidaalkana eegayo movement iyo dhaqdhaqaaqana uu eegayo marka shidaal uu ka ballaadhan yahay shidaalkaa xoogga saarteene waxaad ku iibin karayseen in ka badan inta shidaalka su-aashaan isweydiinaya waxay tahay haddii tusaale ahaan kambeni 10 gaadhi leh waxay ku kacaysaa 2500 soo 2500 waa investment aad weyn ma aragtaa muxuu seef garaynayaa maxaa ka lumi jiray maxaa u soo kordhaya halkaa in yar ma aragtay horta waan xisaabiyo inaad ku qanacday baan filayay laakiin waxay sheegaysaa ixsaa'iyaadkan aanu sidanaa inuu 50% seef garaynayo shidaalka meel kasta oo aan xisaabin shidaalkeeda iminka marka waxaan kaaga soo qaadan 1 litir oo is soo saaray 6 bilood wixii ka dambeeya waa inuu faa'iido uu kordhinayo okay marka daraasad 2000 in yar daraasadiina ma waxa ku ogaateen darawaliintu inay shidaalka xadaan inaan exactly la sheegi karin baan may daraasadeedu ku ogaanay inuu darawalku xaday inay kaalintu xitaa xadaba inay kaalintu xitaa xadaba may waa wax dhici karaa laakiin waxaan rabaa tusaale ahaan haddii baabuurtaydu ay si saxa u socdeen oo aan waxba laga xumayn jirin ma aragtaa si fiican faa'iidada kale ee uu soo kordhinaya maxay tahay mar adeeg halkaa in yar waayo waxaan ka fikirayaa tusaale ahaan imika hadduu shidaalka yaraynayo beekaaminayo macnay ahaan laydoo waxaan leeyahay 10 litir buu ka jarayaa waa orayd ma aragtaa
haddii wax layga xadi jiray oo uu ii badbaadinayana waa orange haddaanay waxba iga xumayn tusaalahaan gaarigayga brivatekaan imika u wato si fiican muxuu haddaan waxba layga xadaydaan saasan jirin bow waxay noo jireen baan kuu sheegaya haddaad kambani haysato kambani haddaad hayso ima odhan kartid eg waan tegnay shirkadaha transportationka gaari wuxuu ka tegayaa Hargeysa wajaad u tegaya 25 litir baa la siiyaa waan weydiiyay waxaan ku uri war 25 litir adiga lacag bay ku joogtaa kambani Soomaa actual ma yahay qiimaha saxda ah 25 litir inta Hargeysa ka kaxayaan wajaale toos ma u dhex dhigayaan iyadoon wax saayid ayna ku jirin marka wuxuu igu uri mayane waa assumption waa qiyaas anigu hadda qiyaastan meesha ka saaraya waxaan leeyahay actual Hargeysa ka dhaqaaqay wala arkaya wajaalu tagay actual 18 litir buu kugu kacay ayaan leeyahay 18 litir ayuu kugu haddaba eeg simple xataa adiga annaka targetkaygu aad u weyn adiga kambaniga qof wal aan wuxuu badbaadinay 0.5 naad tashidaal hadaan badbaadinay lacag baan badbaadin ogsoonow horaan oo kugu aaraar waxaan ku shidaalku sanadka ka dambeeyana uu sii kacay wax joogana ma aad baa u mahadsantahay su'aasha kale weydiinay waxa weeyaan siduu businesskiinu u kori karo ama xaddigu yeelan karo ayaa su'aal ay ka taagan tahay tusaale ahaan kaalmaha shidaalka ee dalka ka furani waa imisa kambaniyada aad target garayn kartaan ee commercialkii waa imisa hay'aduhu waa imisa tusaale ahaan hadday waxooduba 2,000 oo meheradood yihiin oo 2,000 oo meheradoodba ka iibisaan xagee u koraysaan way aad u maasantay saaxiibka u dhiibi doona fikirkan horta anaku imika markii lacag la sheegay nagu dhalan sanadkii jaamacadda markaan ugu dambeysay imika sanadkii ugu dambeeyay ku jirnaa bilowgiisiiba nagu dhashay su'aal wal oo iman karto oo macquul ah haddii noqoto macallimiinta businesska noo dhiga iyo qof wal oo ku tuumano business inuu ku jiro waan weydiinay su'aal kastoo macquulatiga u dhow taada laftigeedana waan isweydiinay laakiin saaxiibka isku dayay inuu ka jawaabo aad baad mahadsan tahay waad mahadsantihiin idinkuna waxa weeye waa khaarij min barnaamij fiiradayada adeegaysa markaa waxa weeye haddii aanu helno 9 waxaan leeyahay 9,000 haddaanu helno aanu helno haddana faa'iido ah 10% waxaanu haynaa fikir aan fikirkan ka fogeyn oo halku kan batroolka iyo halkaa yahay oo kan biyaha iyo halkaa yahay markaa fikirka kale ayaanu generate garanaynaa kaas baanu businesska iyagana ku horumarinaynaa kan kalena ku kaabaynaa haddii uu istaago bilaaba probability ku istaagayo yar waayo suuqa cid inaguma wehelinayso dhimaankiina uu badan yahay sida xaqiiqooyinkan waraaqahayda ku tusay aad baa mahadsan waxaan ku haynaa waraaqaha iyo safetygiisa marka waraaqahana waa dhammaantood waxa shaambadeeyay EU-da iyo Russian quality-ga dhammaantood waxay xaqiijinayaan oo ina shaambadeeyay oo akhri doontaan baalkan quality-giisa iyo reliability-giisa marka had customer-ka ka iibisaan xabad wax dambe iskugu kiin haramiyay jirtaa way jirtaa baalkan yaa keenay shaydaan ninkii keenaa saara hadday wax ka xumaadaan annagaan loo baahanaya mar walba laakiin waxaan aaminsanahay warrantigiisu 3 years ilaa 4 years per company inuu yahay xabadiiba okay wax riskiyood arkaysaan miyay jirtaa businesskiina may sababtoo ah customer-kan ayaan qiimeynay markaa customer-kuna inuu aad u badan yahay meelaha uu taageeranayaana focus ku sameeyay aad baad mahadsantihiin Salmaan iyo saaxiibkii waxaan geli doonaa qiimeyntii labaad bal isdifaacadeen ganacsigan iyo sida uu shaqeynayo iyo sida uu ka iibsamayo waxa iska bedelay xubnaha ganacsatada ee guddiga halka ku kala saarayay Cabdiraxmaan Ali Hersi waan ka bilaabayaa Cabdiraxmaan maxaa fikirkaaga hore iska bedelay fikirkaygii hore wax weyn baa iska bedelay waxay u eegayeen niman aad u xisaabtamay barnaamijkuna waa barnaamij fudud yani la fulin karo haba yaraado xaddigiisu yahay laakiin suurtagal ay tahay waana halabuur cusub waxaan uga dhigay 70 waa tahay Cabdi Yusuf anu markii uu horeysay baan 60 siiyay markaa 5 kaluuman ku daray waa tahay Ismaaciil Maad runtii aad bay ii soo jiidatay fikradan waxaana ka muuqata istifaacoogii suurtagalnimada businesskan hal abuur baa ku dheehan rag fahansan bay iyo u muuqdaan inaanan weli cid ugu darin baan ugu darayaa oo 10 darajo ah waa tahay aad baad mahadsan tahay waxaan jeclahay sacabka u tuntaan ardaydaasi la sii dhaweysaan inay guuleystaan baan idin rajeynayaa dhammaantiin
dhammaanba howlwadeennada kala duwan ee barnaamijka daadihiyaasha iyo hadday tahay hal-abuurka barnaamijka Professor Ara waxaan si gaar ugu mahadnaqaynaa bangiga caalamiga ee Premier Bank oo joogteeyay barnaamijkan inuu si joogta uga baxo warbaahinta kala duwan ee Soomaaliland bisha barkada Rabadaantana dadweynuhu ay ku nastaan kana faa'iideystaan wixii macluumaad barnaamijku kordhinayo barnaamij kale oo kala mid ah korta kuma dhamaantay waxaad ku dhaafnaa wanigo Jaafar Axmed Badaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh walaal safarkayga Turkiga saacada ka hadhay lacagta inta leegna safar lama gali karayo waxaan doonayaa lacagta inaan ku sii dhiibo si aad iiga soo daba dirto waa dahooy taleefanka carruurta kula haystee hayga qaban waaye walaalay sadaqil baxaa si ka noqotay maanta had ma laga tagay wararka aad ka sheekeynayso maxaa lacag laga soo daba diray iyo taleefan aad ka soo hadasho kugu hawlay soo tan Premier Bank noqotay hawl fududayn oo halkii aad tagtaba xoolaha kay ku daba sidaysaa oo aan koon baba ku leeyahay lacagtaan dhigtay ma iyaga iga soo daba diraya balina mari ku soo dhawaada Premier Bank maxay idinka caawiyaa Mastercard baan u baahanahay hadda dalbo oo hadda hel